السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داوديال maanta waxaan kala soo hadlaynaa kantaroolka galbeed ee magaalada Gaalkacyo galmudug halkaas oo maanta aynu kula kulannay koox gaadiidleyda ka shaqeysa gobolada dhexe ah kuwaasi oo ka cabanaya lacag ay sheegeen inay dulsaar ku yihiin ama canshuur dhaaf ay ku yihiin canshuur xad dhaaf ay ku tahay dawadayaal maanta markii aan halkan soo gaarnay waxaan kula kulannay gaadiidkaas faraha badan aad u jeedaan oo ilaa dhowr iyo 10 gaadiidka xamuulka qaado waaweyn ah oo ku xaniban kantaroolka Gaalkacyo gaar ahaan galbeedka magaalada Gaalkacyo ku yaala imaamusha galmudug darwaliintan sida ay inoo sheegeen waxay aad ugu xanibnaayeen meeshan imiso ayaad ku ilaa 3 bari ay noo sheegeen in ay halkaan ku xaniban yihiin sababta ay ugu xaniban yihiin iyo waxyaabaha ka dambeeya ayaga noo sharaxi doona ugu horeyn waxaan rabaa mid kamid ah wadayaasha gaadiidkan in aan wareyso halkan soo istaag oo arintaasi uu noo faahfaahiyo ugu horeyn soo dhawow waxaad inoo sheegtaa magacaaga wala magacay waa Cali Xuseen Xasan oo ku magac dheer Cali Gidis oo gaadiidka wadadan ka shaqeeya rag iska laan kamid ah wadan okay Cali waxaan rabnaa inaad si qodo dheer oo faahfaahsan noogu sheegtid sababta saddex maalmood halka ugu sugantiin dhibaatooyinka jira iyo waxa aad maanta ka cabanaysid walaal waxaan ka cabanaynaa wadadan galmudug aan ka shaqeynaa ragga waxaan nahay ka shaqeeya Gaalkacyo ilaa Beledweyne ilaa iyo inta ka dhaxayda galmudug inta ay ka tirsan tahay waxaan ku soo shaqeynaa waxyaalo badan oo aan hadda halkan ku soo koobi karin kontaroolada galmudug hal meel boonana kaga jiray boonadaas maalinba waxay soo mareedaa heer waxaan ka soo bilownaa $680 annagoo ku marna maantay bishii sanadkan dhamaadkiisa ay waxaan halka u daray lacag $270 waxaan ku mareynay $950 oo ay noo dheer tahay tiralaha oo $65 oo ay noo dheer tahay dejinta oo ah $30 oo ay noo dheer tahay kontaroolada magaalada galmudug dhex yaala oo lacag ay dheeri ku baxaynay ilaa $35 intaas sanad si u bayaanisid kontaroolada kale oo galmudug dhex yaala maxaa ula jeedaa macnaha sida kontaroolka weyn ee dawladda miyaa jira lacag kaga qaado kontaroolo yar yar oo waxa jira magaalooyinka dhexe ah xagee ku yaalaan cadaado kale mareerguro kale ceel dheero kale gurceel oo kale kontaroolada ku yaala oo intaada maaliyadda gaari mid kasta ku dhahay xagaad u socotaa lacag la kaga qaada lacagna la kaga qaada hadii aad lacagtaas diidana waxaan kugu hanjabaa in la yara gaarigan dejiya baara dhulka dhiga hadii kale gaarigan waxa waa dabiina laga rabaa marmarka lagu xujeyna saas laaligeed waxaan ku qasbanahay inaan wax bixino $5 $4 $20 midba si waxna la kaga qaada hadii lacagna uga baxdaa waa $35 kontarooladaas waxaan noo dheeri hadaan dhuuso marab ku dagayna inaan $30 aad gaariga ama lagu xiraayo ama aad dibeedid aad baxayd oo dejis leera 950 awalan kontaroolka Gaalkacyo kaga soo jaray marka guud ahaanba waxaan bixi jirnay lacagtaas $10 lacag naga bixi jirtay saasoo aan ku qabnay oo wada dhis aan ku qabnay oo bixinay gooni bixinay oo dad dalkooda dhisayaan ahayn ayaa hadda waxaan ku soo rogay in la kaga rabo kontaroolka Gaalkacyo galmudug in la yiraahdo $150 nal kaga rabaa midaas oo nal gooni nal kugu faquuqayo inaan nahay gaadiidleydaas ka timid koonfur oo ah baawurtaas double raalada ah baawurkii candamaydka nolol shaqeeyahay oo aan Gaalkacyo nagala soo baxay $20 aan lagu daro annaka laakiin waxaan lagu daray $100 waa gartay marka leedahay faquuq ma waxa ka ula jeedaa gaadiidley ka shaqeysa gobolkan oo aan gobolka u dhalamso waxa ka ula jeedaa gaadiidleyda koonfur ka timaada gaadiidleyda koonfur ka timaadanahay in kasto aan ku nahay galmudug laakiin waxaan ka nimaad baawurtanan ragga Muqdisho ilaa iyo ka shaqeeyanahay meel walba oo shaqo ay jirta ragga aadanahay maamul kasta oo aan u tagnana lacag naga qaada maamul kasta aan markaas la joognana waa ka shaqeyn laakiin hadda inta badan 3 sano ayaan halkan ka shaqeeyahayna boonooyinkii hayna ala gaari waxa laga helaa $100,000 boono ah inay saaranta hadda isku soo duun oo kabinada ku jirta marka waxaan ka codsaynaa madaxweynaha dawladda galmudug madana Qoorqoor Cabdi Kaariye inuu hawshanaan oo soo galo maanta ku 4 bariyan taaganahay
waxaana u taaganahay $1,050 oo nalkaga rabo galmudug wax aan qaadan karno iyo wax noo qalmana maahan baabuurta inaan meeshooda uga tagno oo ku wareejino maamulka iyo inaan saldhigeeda u goyno in la shaqbisaarna garta waxaan rabaa sidoo kale ninka odaga asna kamid ah gaadiidleyda meeshan maanta ku sugan in asna wax ka weydiiyo arintan magacaaga ugu horeyn magacayga keenan salaad cigaal waxa kamid ah wadayaasha gaadiidka ee gobolkan ka shaqeeya baashan sida walaalkayga horeeyay uu sheegaba muddo soo jiitantay maalinba lacag baa lagu daraayay damaynta hadda markii uu horeysay markii uu dhameysay 850 anoo ku maraynaa 100 kale lagu daray 950 baa laga dhigay waxa cabanay waxa la yiri 100 kaas kale waan ka reebaynaa 850 keeda ku celinaynaa gudoomiyaha gobolka mudug iyo rag kale xildhibaana iyo wasiirka maaliyadda warkaas u gudbaayay waxaan ku ballansanaynaa in wax hoos nogala celiyo anagoo sidoo ku ballansan haddana waxa mid kale lagu sii daro waxa leeyahay $1,050 anagu hadda ma bas dhihi karnaba de waxba canshuur ma dhihi karnee marka meesha maraysa ama baaburka naga gatay u egtaa sababtoo $1,000 meel control gaadiid looga canshuuro hadda caalamka iyo Soomaaliya ma garanayo $1,050 idinku ma deegaanada galmudug kaliya ka shaqeysaan baaburtiina oo goboladan dhexe masal waxay u gudubtaan gobollo kale oo dalka ah anagu gabadhan laga xiran ma jirto laakiin hadda xamuulkan baladweynaha waxa geysa xamuulka meesha socdo laakiin anagu hadda meel naga xaniman ma jirto marka nin walba meesha shaqo u helo uu aada gaadiidka hadda taagan oo rarka u taagan yahay rarka oo xageey wuxuu wada baladweyne maxay tahay waxa kamid ah waxyaabaha asidiin oo hadda canshuurta zaadka la kaga rabo waxa lagu qiimeeyaa canshuurta gabi ahaanba markii la qaadayo rarka asidiin kuwaanta tagay iyo quality-giisa mase gaarigu wuxuu sida waxay rabaan bahaadaan daniyo meeshaan xamuul baa uu la isweydiiyay hadda anagu waxa sina qutul daruuri weeye waa raashin iyo dhismo waxa hadda anagu qaadnaa meeshaan adigu wada laakiin dadkan ma kala qiimeeyaan kuwaata tagay quality midna ma qiimeeyaan loo raba canshuure warniyo baaburku waa raran yahay lacagtii keen way $1,000 lacag $1,050 lacag keen way $1,050 kaasna marka anagu waxa u faahnaba canshuur waxa la arki jiray ama loor canshuur ama gaari transmitaal canshuur markii la yiraahdo rayd bay kala leedahay waxna maaliyad weey waxay ku dhacdaa dadka xoolaha leh kiishka la canshuura waxna waa transmitaal gaadiidka la canshuuro waxa hadda anaga naga qaada mustacmal dhaxo ah gaariga iga gado ama islaamiga iga gado sidaas u fahansan cid kasto oo akhrisana way u fahmaysaa sababtoo ah hadii loor la canshuurayo ninka loorka soo degsada waa leeyahay hal canshuur hadii gaari la canshuurayo transmitaal warqad waxa wadaganta maraayada galmudug way ka qaadataa ya taargii buurgi waxa dawladdu waa canshuurata marka cabasho waxa ka nahay madaxda galmudug maaliyad ama madax sare ah xildhibaano dadka wax garadka waxaasi waxna qabta maahan arinteena la soo fargaliyo